waxaa dalkan Jarmalka soo dhaweyn iyo hadhay masharafeed loogu sameeyay gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga wadani ee Somaliland Cusmaan Afkaab. Munaasibadan oo ka dhacday magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan taageerayaasha xisbiga wadani. Ugu horreynna waxa halkaasi hadalla soo dhaweyna ka soo jeediyay afhayeenka xisbiga wadani ee dalka Switzerland Cabdalle Maxamed iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalkan Jarmalka Cabdisalaam Sheekh Maxamed iyo xubno kale iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay dhahdeen rajayna xukuumadda waqtigan haysa inay qabato doorashada xilligii loogu talagalay iyadoo ay muuqan wax carqalad runtii in la carqaladeena runtii aad baan uga soo horjeednaa ma rajaynayno in lagu daro maalin xaraan ah runtii waxaan rajaynaynaa in lagu qabto si loogu talagalay si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah laakiin ma ogolaanayno maalin xaraan ah ama maalin uu ku darsado madaxweynuhu yeeli mayno insha Allah dadka reer Somaliland iyo xisbiga taageerayaasha xisbigana waxaan rajaynaynaa gunta dhiisha iskaga dhigaan oo u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah kulan kooban kula yeelanay gudoomiyaha golaha dhexe Cusmaan Afkaab Cusmaan si wanaagsan buu xaaladii dalkii siyaasadii abaarihii sixir bararkii xaaladii dalku ku jirtay horumarkii wax kasta oo xaaladda dalka uu nala socodsiiyay gudoomiyuhu wuxuu hawlo shaqo u joogaa wadankan iyo wadannada Yuruba waxa uu soo maray Vienna caasimadda Austria iyo gobollo kale oo wadanka ka mid ah halkan wuxuu la joogi doonaa maalmaha hadii Ilaahay maanta hawshan socoto waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer Somaliland iyo bahweynta xisbiga wadani hadii Ilaahay idmo wiiga dambe maalinta 5 Maars in ay hadii Ilaahay idmo aan qaban doono kulan ballaaran mu'tamar xisbigu isugu imanayo hawlahii dardargelintii hawlihii doorashada abaarihii barnaamij siyaasadeedkii xisbiga campaigniskii doorashooyin aanu hadii Ilaahay idmo ku casuumi doono reer Germany gudoomiyuhu hawlaha iyo hawlo kamid ah noogu yimid inuu nala dardargeliyo iyo laamihii dib u cusboonaysiin iyo hagaajin hoggaanka Germany iyo taageerayaasha xisbiga iyo reer Germany dhammaantood bulshada reer Somaliland waxaan ku wargelinaynaa gudoomiyuhu intuu joogo inay la kulmi karaan xaaladii dalka iyo joogana si wanaagsan hadii Ilaahay idmo uga warrami doono aad bay sharaf noogu tahay in uu gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga rajada shacabka ee wadani xisbiga talada Somaliland dhawaan qaban doona hadii Allah awood la xaqiisa laga helo waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo taageersan xisbiga wadani iyo siyaasaddiisa iyo dhamqurbaha gaar ahaan dalka Jarmalka jooga inay ka soo qayb galaan oo dhageystaan xaaladda wadankii uu ku sugan yahay tii abaaraha horumarka iyo wacyiga guud ee dalku sugan yahay inuu gudoomiyaha xisbiga wadani ee golihiisa dhexe uu inooga warrami doono isbuunimii soo dhaweynta gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga wadani Cusmaan Afkaab kulankeena intaas uu kala daaranayo imka wadankeena uga yimi gudoomiyaha ku soo dhawo wadanka gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga wadani Cusmaan Afkaab oo uga mahad celiyay soo dhaweyntani waxaana hadaladiisi kamid ahaa ayaan idin la jooga hadii Ilaahay ka dhawo kale wax badan idin lama joogo hadda waxaan soo maray Austria baan soo maray oo muddo joogay halkaana iyadana xisbiga oo si fiican uga soo dardargelinay rajaynayna ayaamaha soo socda mar kale ku noqonayo si ay maartay ay dibdhisku u dhameystirmo meel kale oo insha Allah iyadana dibdhiskan ku wadnaa iyadana waa si mardo waan tagi doonaa sida Belgium oo kale insha Allah taala mar walba waxaynu maartay isu kaashanaynaa in dardargelinta xisbiga maadaama doorashooyinna inagu soo fool leeyihiin dadka soconaya xisbiga gudiga ka imanayana laga yaabo inay koobnaadaan ama inta doorashooyinka ka horeysa ay adag tahay in marmarka qof soo maro in wixii dal isla kaashan karo la isla kaashado marka kulliba inagoo dib insha Allah aad ka kulmi doona ka wada sheekaysan doona sida ay howlaha u dhaqaajinayna si fiican uga sheekaysan doona aad iyo aad baa mahadsantihiin soo dhaweynta iyo aad maartay ugu soo dhaweyseen waa idinka mahadnaqaya guud ahaan dhammaantiinba aad iyo aad baan u mahadsan gudoomiyaha laanta Germany iyo waayal mudakar MMTV Jarmalka